السلام عليكم soo dhawaada Ramla in the kitchen waa idin salaamay akhwaati meel walba joogtaan waxaa idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad mar walba ila socotaan maanta waxaan rabaa inaan sameeyo qado yar oo fudud waa bariis macal digaagiisa sidaan u sameeyay iyo waxyaabahan ka sameeyna daawasho wacan haddana waxaan ka bilaabayaa doorada baankana waxaan ku riday hal qaado batar haddaadan hayn markaas wax dhibo ma lahan saliideena caadiga oo aan cuntada ku karsano ku kari ama subag waad ku karsan kartaa wixii markaas adiga aad haysatid batarka waxaan rabaa hadda inuu ii dhalaalo markuu dhalaalo ka bacdi waxaan ku darayaa chickenka si dhuudhuubaan u jarjaray laakiin adiga sidii aad jeceshahay ayaad u jarjaran kartaa box oo micnaha si yaryar waad u jari kartaa si waaweyn si dhuudhuuban sidii adiga aad jecesha ee ay kaa tusto batarka iyo waxaan isdhexgeliyey hadda chickenkii dooradan uma baahna karis badan ayada dhanba 10 daqiiqaad dhagdhag ku siisan kartaa waxaan ku darayaa xawaaji shiidan qaado yar haafkeed waxaan ku darayaa chicken masala ayadana qaado yar haafkeed oo hurud ah halahaas markaan ku daro waan isdhexgelinayaa waxaan rabaa intaan yarta spiceska iyo chickenkii si fiican inay isku dhexgalaan haddii aysan markaas ilmo yaryar cunaynin basbaaska waad ku dari kartaa powderkaas si fiican aan isku dhexgeliyey diyaar waa hadda dabkaan ka daminayaa qaybta suugadaana galayaa bataraan ku riday batarka waa dhalaalay kabacdi hal basal weyn oo aan si yaryar usoo jarjaray aan ku daray waxaan rabaa basasha iyo batarka si fiican inay isku dhexgalaan oo basasha xoogaa iyo bislaato basashana sidii aad jecesha u jarjaro waaweyn ama dhuudhuub yaryar laakiin yaryarkan suugadan aan karinayo ku fiican hadda waxaan ku darayaa waa sanjabiil iyo toon aan soo xoqay halahana haddana markale iska dhexgelinayaa waa basashii iyo toontii iyo sanjabiishii halahan si fiican aan xoogaa bagagac uga siinayaa inta waxaan ku haystaa wax yar oo spices waa filfil shiidan oregano parsley cusbo iyo wax yar oo chicken masala ah halahanan hadeertaan ku darayaa spices badan ma isticmaalay intaas yarta ah chickenkiina spices waa ku daray ma ahayno intaana halahanan ku darayaa waxaan rabaa basasha iyo spiceska inay si fiican isku dhexgalaan oo flavor qurux badan ama flavor macaan inay soo daayaan kabacdi waxaan ku darayaa hal qaado weyn yaan shiishida iyo hadda waxaan isdhexgelinayaa basashii iyo spiceskeedii oo iswateen intaanaan haddana bagac ka siinayaa akhwaati insha allah like-ta naga hilmaaminina dhag ku siiya waa inoo dhiiragelin haddaad nagu cusubtahayna welcome to our family subscribe-ka dhag ku sii gambaleelkana furo una sii sheer garee asxaabta iyo familka hadda inta waxaa igu jira hal qaado weyn oo bur ah waa burkeena caadiga aan sabaayada malabo waxyaabahaas aan ka karsano canjeerada everything burka halka qaadaan ku daray burkii iyo haddana basashii spiceskeedii iyo shishidii halahaasaan si fiican isku dhexgelinayaa waa kana way soo yara cuslaadeen way isqabsadeen muujeedaan jag isku soo noqdeen burka wuxuu siinayaa culays hadhow markii waxyaabaha kale ku dartid uma baahanaysid cream waxaan ku darayaa hal koob caanaha iyo hadda alaabtii hore igu jirtay meesha sida basashii burkii waxyaabihii spiceskii dhan aan si fiican rabaa inaan isku dhexgeliyo burkaasaa hore idinku sheegay waxaad uga maarmaysaa cream inaa isticmaashid asaa cream kuu noqonay suugadii uu kuu cuslaynaa biyo ma ka dhigaayo waa kanaasaana isku soo dhexgeliya ujeedaan maasha allah kabacdi waxaan ku darayaa half koob oo biyo cad waaye biyo caadi waaye oo half koob ah half koobkii biyaha aan si fiican u dhexgelinayaa burtuq iyo lagama rabo inay kaa noqonayaa mar walba walaaqa ugu dadaal si fiican ha isku dhexgalaan waatana alaabtii saanay kusoo baxday alaab yar oo smooth mujeedano yaa biyo kala ordaay ma ahan waa alaab yar oo iswadato oo maasha allah ay noqotay haddana waxaan ku darayaa chickenkii ama dooradii aan markii kow aan ku bilaabayay aan soo kariyey aan wax yar bagagac ka siiyey waa isku daray waxaan rabaa inaan walaaqo oon si fiican isku dhexgeliyo
dabkan wax yar u daynaya wax badan uma daynaya ilaa iyo adi waxaan u daynaya 5 daqiiqo camal maxaa yeelay waxaa la rabaa suugada aan kariyay iyo chickenkii markaan isku daray inay isku karkaraan oo chickenkii flavorkeedii suugadii flavorka wixii dhan ay si fiican isku qabsadaan sidaan oo kale mujeedaano wax yaraan dabka u daayay wax yar oo culus ee isku noqdeen creamkaaga ma baahna supermarket inaad ka raadisid qarash isgelisid ma u baahna halkaas qaado oo burka wax badan ka saacideynayso waa ujeedaan alaab yar oo culus ay ka dhigtay testiguna aad ayuu u macaan yahay hadda waxaan ku darayaa wax yar oo kabsar ah oo caraf siinayso ka bacdina dabka waan ka daminayaa waa diyaar briiska shaqadiisa ayaan gelayaa akhwaati hay ilmaaminina inaad like-ta dhag ku siisaan dhiirigelin ayay noo tahay haddaad nagu cusubtayna welcome to our family subscribe gambaleelkana furo una sii sheer garee asxaabtaada iyo familkaaga siday uga faa'iidaystaan ayakana hadda dabkii ayaan ka damiyey waxaan gudagalayaa bariiska waa kana waxaan ku bilaabayaa hal qaado oo batar ah kabacdi batarka waxaan rabaa waxyar inuu ii dhalaalo subag caadi waad ku shuban kartaa sidaan horey usoo sheegay ama saliid olive saliid qumbo bariiskan aan sameynayo waxaa waaye bariis qumbo waaye okay batarkii uu dhalaalay waxaan ku daray basal hal xabo aan si yaryaar usoo jarjaray waa ayadana intaana hadeertan bagac isku siinaya mar kale bariis qumbo aad u fudud waaye qumbihii oo fresh ah ayaan ku sameynayaa oo aniga aan gacanteeda ku xoqday waxaan ku darayaa waa sanjabiil iyo toon kabacdi sanjabiishaas iyo toontaas iyo basashii aan haddana mar kale bagac isku siinayaa qumbaha haddaad jeceshahay waxaad isticmaali kartaa kan supermarketyada laakiin trust me waxaa ka macaan midka la xoqo oo freshka waa kana qumbahan fresh waaye aniga ayaa guriga ku xoqday bahasha lagu xoqa ayaa ii taalo markii aad ku karisid qumbahan freshka ah bariiska aad ayuu u macaan yahay laakiin qumbaha oo dryga oo supermarketyada yaala markaa ku karisid xoogaa zaaid loogama dareemayo qumbo inay meeshaan uu ku jiro laakiin qumbahan caadiga markaa ku karisid maasha allah gowsku xataa dadka u galaa markuu qofka cunaayo qumbihii oo sidiisa uu cunaya ama gooska u galaayo hadda okay diyaar waaye qumbihii basashii iyo dhag aan isku soo siiyey spices ma isticmaalayo maadaama suugada aan spices yaal ku daray qumbaha bariiskan oo qumbaha waxaa la rabaa inuu ahaado plain cad only color yaraan ku darayaa iyo qumbihiisa hadda waxaan ku shubooyaa bariis waaye bariiska zaaid uma bisla half cooked waaye half way aan soo kariyey macnaa dabkaan saaray biyaan ku shubay cusbaan ku daray markuu xoogaa saarnaay oo gacanta markaa ku qabatid uu bush dhahayo ama jabaya ama isleeda wax yariisaa ka dhiman yaa huriska camalaa ka dhiman waan ka miiray waxaan qaatay baalka lagu miiro baastada waan miiray meel ayaan dhigtay kabacdi waxaan ku shubayaa hadda koob haafkiis oo waxaa waaye qumbaha biyihiisa waaye biyaha qumbaha waaye qumbihii markaan jebiyey biyihii iga soo baxay dhinacaan dhigtay kabacdi waan xoqay waa kana qumbaha gudihiisii caddaa bariiskii ayaan ku kariyey biyihiisiina waa ku huurinoyaa hadda waxaa waaye food color aan soo qasay waa egg yellow aan isticmaalayaa wax yar oo biyaan ku qasay kabacdina waa kana asoo powder ah hore ha ugaga shubin ma fiicna powderka wax yar biyo leh ku qasa ku wareeji markaa ku wareejisidna hore ha ka walaaqin huuris daboolkiisa saar faraha ka qaad food colorka kabacdi hadda waxaan ku darsanayaa kabsar waaye ayadana aan soo jarjaray kabacdi daboolkiisaan saarayaa cabaaranka maqnaana markuu huursamana waa isku soo noqonaynaa suu kusoo baxay waa kana bariiskii geedkan aan kusoo shubay oo keega kabacdina hadda waan ka gadinoyaa waa ujeedaan saanuu kusoo baxay colorful yaa meel waxaa waaye kalarkii meel bariiskii kabsartii oo ka muuqmuuqata maasha allah cajiib geedka keega ama weelkii markaas arabtina ku shubati wax yar oo saliid marso ku shub kabacdi hoos ugu buusbuus xoogaa ku rix kabacdi ka gadi hadda meesha oo dhexda duleesho waxaan ku shubanayaa kachumbari waaye ama waxaa waaye qajaar yaanyo iyo basal aan isku jarjaray kabacdi hadda waxaa waaye yaanyada qolofteedii aan wax yar ubax yaraan ka sameeyey dhexdaan u saarayaa afaarahan naashnaasha la dhahaa yaa kabacdina geesaha waxaan uga soo wareejiyey waa chickenkii
saan miiska markaa u saartid waxaa kaloo sameynaysaa chickenkan maraqiisii asagana baaquliyaa ku shubay iyo chickenkii iswata waa ag dhigaysaa halahan ma lagu cuni karo keliya briiska dry waaye marka intaan korena qurxin waaye so I hope inaad ka hesheen akhwaati meel walba aad joogtaan waa alaab yar oo simple ah waa qado fudud booska chickenka hilib waa ku bedelan kartaa fishna waad ku bedelan kartaa adiga iyo dookhaaga ha hilmaamin inaad subscribe-ka dhag ku siisid like-ta dhac ku siisid usii shargare familkii asxaabta daawasho wacan assalaamu calaykum waraxma